السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن وعشركي 19 ولينا waxaan ku guda jirnaa maadadii managerial accounting ayaan ku guda jirnaa. Managerial accounting ayaan wali ku guda jirnaa. waxaan horey u soo qaadanay waxaan ku jirnaa casharada aan ka hadlayno shirkadu inay analyze karayso isbedbedelka ku dhici karo wax soo saaritaankeedii iibitaankeeda iyo qaabka loo xisaabiyo shirkada marka ay rabto inay ogaato ganacsigu markuu isbixinayo oo ah in iibka inayna shirkada khasaarin waxna faa'iidin bimacnaa shirkada inay iskaafar karayso bimacnaa inay gaadho nuqtada isla eg faa'iidada iyo khasaarada iibka iyo khasaarada isla egta iibka iyo khasaarada oo break evenka aan ku tilmaameynay. waxaan kaloo soo qaadanay kadib ka waran haddii qayb ka mid ah warbixinta haddii aan ziyaadino iibka haddii aan ziyaadino kharashka haddii aan bedelno materialkan isticmaalayno haddaan bedelno advertisementiga haddaan samayno haddii ka waran advertisementiga halkan dadka lacag go-aan ka siin lahayn aan u wareejino salesmanka oo aan dhahno haddii aad wax badan gado boqolkiiba intaasaad leedahay. isbedbedeladaasi iyo saameynta ay ku yeelanayso warbixintii aan diyaarinaynay ee ahayd contribution income statement aan diyaarinaynay. maanta qayb kale ayaan ku daraynaa. shirkadu waa ishubisay waxay ogaatay in ay cover gareynayso kharashaadkeeda laakiin shirkada looma aasaasin kaliya inay kharashaad cover garayso qofka faa'iido rabaa. marka waxaan maanta u gudbaynaa cashir fudud waaye maanta oo dhamaystir ah chapterkana soo dhamaystiraynaa. waxaan u gudbaynaa sidee baan ku ogaan karaa saleska ay shirkadu ay tahay inay iibiso sifa inay cover garayso kaliya kama rabo fikiska. waxaan kaloo ka rabaa inaan faa'iido dhaliyo. idan cashirkii horaan soo qaadanay ayaan wax ku ziyaadinay. waxaan rabnaa shirkada maamulka shirkada wuxuu rabaa in uu ogaado faa'iidada uu samayn karo. markaad ogaato waxaa zero garaynayo waxa cover garaynaya kharashaadkaaga faa'iidadana way fududaanaysaa inaad ogaato. dabcan mucaadalaan ku siinaya mucaadalada inaad xifdiso mucaadalooyinka xifdintu ma aha inaad qaadato ku celceliso inaad dhahdo waxa weeyaan break even waxa weeyaan total fix oo loo qaybiyo contribution la waa in aad ka shaqaysaa waa inaad dabaqdaa. kullama aad dabaqdo the more aad xifdiso ma aha wax aad ku celcelinayso quraan ma aha waxa weeyaan practice way. okay anu imaana cashirka maanta su-aasha waa maxay su-aasha isla fahanno intaana mucaadalada u guda gelin. su-aasha taala ee jawaabta u baahan ee laga rabo waxa weeyaan sidee baan iibkeena uu uga jawaabi karaa cover gareynta kharashaadka ana faa'iido u samayn karnaa. sifa marka aad taa uga jawaabto waxaad samaynaysaa qaybtan ii dambaysii haddii total fix costiga kaliya hadda intan kasoo qaad inayna meesha ku jirinba. okay total fixka oo loo qaybay contribution margin per unit maxaa soo baxay break eventigi waa soo baxay. waxaa soo baxayo unityada haddii aan iibino uu faa'iidadeena noqonayo zero. okay bimacnaa mucaadalada qayb ka mid ah horaan usoo qaadanay naguma cusbo. maxaa nagu cusub qaybtan dambe ayaa kugu cusub. ardayow qaybtan ha kugu cusub oo qaybtan maxay tahay qaybtii hore ayaan waxaan ku daraynaa waxaan leenahay waxaad noogu dartaa faa'iidada ay shirkadda rabto profit required. idan waxay noqonaysaa total fixka oo lagu daray profit required oo loo qaybiyay contribution margin per unit ayaa waxa uuna siinayaa saleski ama unityada ka jawaabaya inay shirkadda xaqiijiso faa'iidadan ay xadiday. okay total fixka waa lagu siinayaa. qaybtani laguma siinayo contribution margin per unit in lagu siiyo waa suuragal inaan lagu siinin waa suuragal oo haddii aan lisaynin macalin xaggeen ka keenaya cashirada horaan usoo qaadanay. tani waxay ka dhalatay laba qaybood waa muraajaco ma kugu cusbo. laba qaybood ayay ka dhalatay qayb ahayd haddaad ila xasuusato priceka
iyo qayb ahayd variable costiga. idan markaan kala jaro price-ka iyo variable costiga maxaa ii soo baxayo contribution margin per unit ayaa ii soo baxayo. okay, mucaadalo kale aan ku xasuusiyo cm ratio-dii sidee baan kusoo saari jirnay cm ratio-dii leanna waan qaadan doonaa mar dhow kadib, horaana usoo qaadanay. cm ratio-ga see kusoo saaraysaa price-ka ama saleska kolba waxaad haysato price-ka aan dhahna hadda oo loo qaybiyey cm per unit oo qaybtana hoosta ku imaanayso. okay, haddii waxa lagu siiyey uu yahayna totalaadna meesha price-ka aan ka isticmaalnay total sales ay isticmaalaysaa, meeshan aan ka isticmaalnay cm per unitna contribution margin oo keliyaad ka isticmaalaysaa. I hope inaan intaa isla hayno. okay, macalin mithaalna sii sifa aan waxaan u fahanno mucaadalada waan aragnay, sifa aan u fahanno mithaalna sii. sifa mithaalka adii la fahanta marka aan samayno waxa ugu horreeyay lisii waa maxay price-kii baa lisiiyey. idan price-kii baa lisiiyey, price-ku waa meeqa waa 8. tusaale ahaan oo kale ka soo qaad inay ticketya aad iibinaysa ay tahay waa 8. variable costigana waa maxay 5. bimacnaa halka unit ama halka ticket waxaa kharash naga galaya 5. fixed costiga waa hore usoo qaadanay, waa kharash hal mar kaa baxayo oona calaaqa la lahayn iibkaaga oona bil walbana kaa baxayo. okay, intani horaan usoo qaadanay haddaad ila socoteen. hadda mithaalkan waa mithaalkii hore, qaybtana cusub. shirkadu waxay rabtaa inay ogaato levelka u xaqiijinayo desired levelka u xaqiijinaya inay faa'iido 450. okay, 450 waxaa marka lagaa rabaa su'aasha meesha taagan waa maxay how much should the company sell. waa imiso iibabka shirkadda ay tahay inay iibiso sifa ay u achieve garayso, sifa ay u xaqiijiso the desired level of profit 450, sifa ay u gaadho faa'iidada ay rabto oo ah 450. arday wuxuu leeyahay macalin waad noo sheegtay fixed asset-ka ayaan waxaan ku darayaa profit-ka, natiijada ii soo baxdo ayaa waxaan u qaybinayaa contribution margin. macalin contribution margin lama siinin laakiin waxaa la siiyey labadii kale ee ka dhalanaya contribution margin oo ah price-kii iyo VCD variable costigii. markaad kala jarto ood isku qaybisana natiijadan ayaa kuu soo baxayso 2,100 oo lagu daray 450 oo loo qaybiyey labadana contribution margin per unit ah waa 3. kadibna waxaa kuu soo baxayso natiijada in ay tahay in shirkadu iibiso 850 sifo ay u xaqiijiso faa'iidada ay rabto oo ah 450. sifo markaan u hubinno u justify garayno u hubinno aan diyaarinno jawaabtan inay sax tahay in kale aan diyaarinno. طبعا jawaabta 850 way jawaabta ku soo baxaysa waatana 850 way. yani waa in aad 850 tigid aad gadaa sifa aad faa'iidada u hesho. marka arintaas sifa aan u justify garayno warbixintii aan diyaarinno saaxiibteen, warbixintii contribution income statement-igi aan diyaarinno. price-ku waa meeqa waa 850 ku dhufo qiimahana kuu soo baxayo. kharashaadka tooska waa meeqa 5 lagu dhuftay 850 waxaa kuu soo baxayo 4,250. waxa markii aad kala jarto waxaa kuu soo baxayo contribution margin-ka waa 2,500. waxaan ka jaraynaa kharashaadkii fixka ahaa, kadibna markaad contribution margin-ka aad ka jarto fixka waxaa kuu soo baxayo faa'iidadii 450. waxa weeyaan faa'iidadii aad rabtay inaad xaqiijiso weeye. I hope in aan intaas la hayno aan soo conclusion garayna. marka laba siba in lagu weydiiyo waa suuragal arintan horeyna waan soo qaadanay. mar in lagu weydiiyo per unit ahaan, in lagu weydiiyo waa imisa unityada ay tahay inaan iibino sifa aan u xaqiijino faa'iidadaasi, ama in lagu weydiiyo waa imiso iibabka total saleska. dollar saleska markaan ka hadlayno total saleski weeye.
idan haddii waxa lagu weydiinayo uu yahay unit lagaa rabo units in lagaa rabo units waa maxay waa waxaan iibinayso bimacnaa imisa baaskiil ayay tahay inaan iibino sifa aan u xaqiijino faa'iidada intaas la eg maya imiska tegid weeye inaan gadno sifa aan u xaqiijino faa'iidada aan raadinayno shirkadda ka ganacsanayso baabuur imisa baabuur weeye inaan gadno sifa aan u xaqiijino idan unitka waa productiga la iibinayo weeye total saleskana waxa weeyaan waa maxay qiimaha iibabka totalka iibabka total saleska ay xaqiijinayo faa'iidadaasi marka su'aasha lagu weydiiyay ayay ku xiran tahay haddii marka waxa lagu weydiiyey uu yahay meeqa productiga inaan iibino levelka wax iibinta waxa weeyaan mucaadaladan ayaad samaynaysaa aan horey usoo qaadanay target profitkii oo lagu daray expenses oo loo qaybiyey cm per unit cm tenant contribution margin y okay haddii total sales laga rabo ama sales kaliya lagu dhaho sales ama dollar sales maxaan sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa qaybta kore isaga mid weeye target oo lagu daray fixed waa iskaga mid maxay ku kala duwan yihiin qaybta dambe inta maxaa lagu yiri meesha waxa lagu dhahay cm per unit inta maxaa lagu leeyahay cm ratio seen ku soo saaraya waxaan ku soo saaraya price-ka ayaa waxaan u qaybinayaa qaybtan ayaan u qaybinayaa cm per unit waxaan qaybinayaa cm-ta ayaan u qaybinayaa price-ka ayaan u qaybinayaa hagaag aan isla qaadana marka tusaalahan okay tusaalahan horaan usoo qaadanay daa'iman waxaan niri su'aasha ka bilow su'aasha daa'iman waxay su'aasha ka bilaabataa pointiga kadib yani markii warku uu dhamaado leeyahay waxaan oo dhan waa macluumaad ayaa su'aasha lagu weydiinaya su'aasha waa maxay marka adigoo isticmaalaya use the formula method to determine how many carbs maxaa li weydiiyey carbs يعني total sale لما ويدينين وحالي ويدي units أي كدغان تهي إذن وحان استعمالها معادلة دي أنو قيبين CM ratio أما CM per unit ما هي CM per unit مع الاستعمال إيسا إذن تسالهاني أن إسلا آخرين إن قلو كافي أو كغنع ستا إيبين تقحوة ذا أيها وحي كتالا stands in a downtown office building average selling price كمهم واي selling price كواميقا نمبرada muhiim waaya aan calaamadeyno selling price kii baa lisiyay variable expenses variable cost waa isku mid per cup baa lisiyay marka waa 0.36 yani halka koobka qaxwada kharashaadka naga galayo kharashka koobka qaxwada galayo waa maxay waa qaxwadii biyihii sokortii way لانه كلما كوب قحوه بدن اديبيسو كلما قحوده سي زياده و استعماشه لكن خرج كميشه كرده كون قحوة إيبي كون كوبو قحوة إيبي لابا كونه قحوة إيبي خرج كجوري ماشا سكرة اسمه بدليو أوكي نلك عاد بحينيس خرج كنلك كون قحوة إيبي لابا كونه قحوة إيبي خرج كنلك ماشا تكو إفتيمين يسمى إسبدليا مايا لكن كورن كورنتان أنو استعمالي قحوة أنكو سمينيو وإسبدليسا وسيسكو بدليسا معلم هدان كون قحوة أن سميو كورنتان استعمالي بدنيسو إذن كورنتان قيبنا وحي نقوانيسا qaybtii mixka wey qaybna waxay noqonaysaa variable qaybna waa fix oo meesha dadka ay ku fadhiisanayaan ku cabayaan kuma xirno samaynta laakiin korontada qaxwada lagu sameeyo variable way idan mix wey casharadii dib ugu laabta I hope inaan isla fahmayno bidnillah idan fixkana waana la siiyey okay 1300 weeye su'aashana la weydiiyay meeqa koob weeye waxaan sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa mucaadaladii haddaan isla hayno qaybtan fixka oo 1300 calculatorka ila soo qaado 1300 oo lagu daray shirkadda waa maxay faa'iidada rabta inay xaqiijiso shirkadda waa qasab in lagu siiyaa waa in ay shirkadda go'aansataa yani arrintani waa arrin uu qofka madaxa ahi uu taqdiirinayo marka wuxuu rabaa inuu number dejisto numberkaasna uu hadafkiisa dhan galiyo waa planning ahaan oo kale weey 2500 way faa'iido rabo 2500 ardayga wuxuu leeyahay okay numberkani macallin wuxuu ka imaaday taqdiir bishakli taqdiiri wala odorasay 1300 waxaad u laabanaysaa kiradada miyaadan garanayn
kharashaadkii mishaaraadkaad bixinaysa miyaadan garanayn dib aad ugu laabanaysaa bishii ka horreysay ama sanadkii lasoo dhaafay yani waa wax aad data u haysata weeye tan laftigeeda analyze iyo taqdiirin baa iskugu daraysaa okay kadib waxaan u qaybinaynay cm per unit ay kusoo saarayaa 1.49 oo price-ka ah ayaan waxaan ka jarayaa v variable cost iyo variable expenses waa isku mid 0.36 weeye markaad aad kala jarto waxaa kuu soo baxayo 2500 markaad u qaybiso waxaa kuu soo baxayo in ay tahay 3363 koob oo qaxwo ah waa inay iibisaa shirkadda sifa ay u xaqiijiso in $2,500 sifa ay u xaqiijiso haddii aan rabno inaan ogaano break eventingana kaliya tan ka saar meesha tan ka saar mucaadalada dib ugu celi koobabka kuu soo baxaya ama natiijada kuu soo baxayso waxa weeyaan waxay ka dhigaysaa faa'iidadaada 0 ayay ka dhigaysaa I hope inaan isla hayno okay waa la bedelay su'aashi maxaa li weydiinayaa hadda sales dollar li weydiinayaa macnaha waa imisa qiimaha la rabo inaan iibino ma aha inta koobay la iibinaya ma aha kaliya maxaan bedelayaa qaybtii ugu hooseysa ayaan bedelayaa oo waxaan sameynayaa CMT qaybtan waxay ahayd CM per unit ayaan waxaan u qaybinayaa price-ka sifa nisbada iigu soo baxdo yani kaliya waxaan u fiirsada farqiga u dhaxeeya qaybtii hore marka unit-ka soo saarayay qaybtan lama soconin okay laakiin hadda nisba soo saaraysa CM ratio nisba sifa soo saarto CM per unit-ka ayaa waxa u qaybinaysaa price-kii baad u qaybinaysaa kadibna waxaa noo soo baxayo sifa aan u xaqiijino shirkadda sifa ay u xaqiijiso $2,500 per month oo faa'iida ahaan waa in saleskeedu u ahaadaa 5,013 halkaas ayaan cashirkii kusoo gabagabaynaynaa waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideen ilaahay idin fudaydiyo cashirada isku daya inaad ku celaashataan aadna dadka walaalaheena kale ah aad sii gaarsiisaan khayrka idinka una isku akeenina aan sii gaarsiino dadkan aan wada faa'iideyno ilaahay caamalkan hanaga aqbalo chapterkan halkaas ku dhamaaday isbuuca soo socda insha Allah tacaala chapter cusub ayaan bilaabi doonaa Allah idin barakeeyo dhamaantiin